زمرانو magacaasi waa macquul inaad hor maqasho ama daawatay waxyaraan kubadda cagta wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda lambarka 10aad u xiran jira kooxda Internazionale laakiin lambarkaasi kadib waxay jirta sheeko ama dhacdo aad looga xasuusto laacibkan muuqaalkan ay ku daawan doontaan saaxiibayaal ixtiraamka dhaxeeyay xidigaha Inter Milan Ronaldo Vanimio oo lambarka 10aad u xiran kooxda Inter markii Inter la soo saxatay liiga Talyaaniga Roberto Baggio Ronaldo wuxuu sameeyay wax naadir ah وأنا عادي كاين kubadda cagta wuxuu ka tanaasul lambarkii 10aad ee Baggio isagoo muujinaya ixtiraam qadarin oo muujinayo laacibka Baggio ixtiraamka Ronaldo muujiyay mid la mid ah waxa muujiyay Zamorano waqtiga Zamorano isagana wuxuu u ciyaaray Inter wana xirnaa lambarka 9aad markuu arkay sida Ronaldo u ixtiraamay Baggio wuxuu go'aansaday inuu isna ku abaalmariyo Ronaldo lambarka 9aad una tanaasulo taa beddelkeed Zamorano oo xirtay lambarkii ugu yaabka badnaa taariikhda kubadda cagta waxaana fanaanadiisa lagu soo taabacay lambarka koobaad lagu daray lambar 8 ama loo yaqaan 1+8 marka la isku daro labada lambarna ay tahay 9 ama lambarka 9aad talaabadan ay noqonaysa xidigan haddii uu dhiibo lambarka 9aad qaab ka duwan oo isku dar lambar la isku geeyo 9 ku imaanayso ayuu fanaanadiisa lagu soo xardhay lambarka koobaad balaas oo dhaxda laga geliyay lambar 8 ay daba socoto qaabkaasi ay u qaat lambarka 9aad isagoo 9ka tooska ah uu siiyay Ronaldo halka Ronaldo lambarkiisa uu siiyay Baggio waa ixtiraam qadarin saaxiibtinimo ay muujiyeen ciyaartooyda kooxda Inter Milan talaabada ugu horeysa ayaad ku noqon kartaa nin sharaf leh nolosha waa inaad ixtiraamto dadka kale shaqo wadaaga atiin Zamorano Ronaldo Baggio waxay hayeen kuwa saaxiibo ah isqadariyay lambaradana si xushmad leh u kala bedeshay